qoyskani Soomaaliyeed ayaa ka xanuunsanayo 3 caruura kuwaas oo ay kala yihiin 2 dumar iyo 1 rag halka 2 dumarka ay la xanuunsan dhanka aragga halka wiilka uu asagana la xanuunsanayo aragga iyo naafo waxaana sidoo kalena waalidiinta dhaleen caruurtan ay sheegeen in ay yihiin 3 caruura isla markaana oo ay badankood ay sheegeen in goobaha caafimaadka ay la tiigsadeen dhaqaatiirta goobaha caafimaadka ay ku wargeliyeen in caruurtani halkan wax looga qaban karin isla markaana loo baahan yahay in loo qaado dalka dibadiisa si ay u helaan indhafiiq kalena indhaha in loo fariisiyo waxay sidoo kale intaasi ku dareen aabbaha iyo hooyada dhaleen caruurtan ayaa waxay sheegeen in isla markaana ay badankood aysan haysanin wax ay ku geeyaan goobahaasi caafimaad iyo sidoo kalena waxay iyagu ay qutulyoonkooda ay ka dhigtaan hooyada iyo aabbahan ayaa waxay muxsiniinta Soomaaliyeed ay ugu baaqeen in isla markaana ay kaalin wanaagsan ka qayb qaataan sifa ay caruurtooda ugu helaan kula tacaalaan caafimaadkoodii Umar Nuur baanahay ilmahan waa 12 jir muddo weyn midda kale waa 3 jir 2 sano jira midka yarna intaas bixantooda uu weynaa oo uu hayaa Soomaalida gargaaran uga baahan yahay tabaran u lahay marka dhaqaatiirtii wax waan ka waayay Soomaalida yaan ka codsanaya gargaar dhaha mid waa baralays 2 gabdhood indhaha waayo midka kale indhaha waa laga hayaa baralaysna waayo waa wanin yaalo in qaalmo oga aan toosay waa kay marka kii baraleyska waa Cabdirashiid Maxamed waa baralays waa cunug curiyaan iyo indhahana waa laga hayaa waa yahay halka gabdhahna gabadha waa gabadha u weyn oo wax Maxamed Cabdullaahi indhaha waayo xanuunkeeda gabadha kale Faadumo Maxamed Cabdullaahi ayana xanuunkeeda waa indhaha waayo fiican ma haysano tabar waa iska nahay waa gartay waa iska tawareysanahay marka dhaqaale fiican ma haysano guri fiican ma haysano waa fiican ma haysano tabar waa iska nahay waa gartay waa iska tawareysanahay marka dhaqaale fiican ma haysano guri fiican ma haysano u taaragala waxaan ugu baaqayaa gargaar in la ii galo oo ilmahan indhaha dooda di Ilaahay uu u furayo liiba waxayo intii Ilaahay uu muslimiinta iga soo qaado waxay ugu dhaheen aan u geystay waxa la yiri meesha waxba loogama qaban karo ilmahan marka Nairobi meel walba waxba loogama qaban karo leedahay marka waxaan u qalbi dheeray marka Hindiyada inay lii qaado wax aan ku filan ilmahan weynahan Soomaalida aan ku codsanayaa yaray waxaan nagama qaban karnaa lii marka waxaan u qalbi dheerahay Soomaalida waxaan ka codsanayaa wadanka Hindiya waxaan ku geeyay inaan Soomaalida aan ka helo muslimiinta yaan ka weydiiyay sadaqada ayu sadaqati a'zamu ajran ka ugu ajr weyn sadaqada la bixiyo wuxuu nabigu yiri an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina ina sadaqaysatid adoo caafimaad ah oo bakhiilaya xoolihiina ku bakhiilahay caafimaadna ah ta'mulu al-ghina oo hididiilanaya qaninimo iyo ina hore u sii socoto takhsha al-faqr fakhrina ka baqahay wala tumhil ha ukadinin sadaqada ina dibdhigti iska daa hatta idha balaghat ar-ruh al-hulqum ila nafti ay gaarta kalxamaha ha ukadin Ramadan Kareem daawadayaal waxaad doonaysaa inaad la socoto waxa ka dhacaya dalka iyo waliba deegaanadaadii haddaba si aad toos ula socoto ka qaybgal oo ka dhiibo fikradaada waxay kula tahay wararka aynu isla markaa idinkaga soo dhirinayno Live News Somali TV haddaba ha ka ilaabin si ay asxaabtaada u gaaraan like share iyo comment intaba waad ku mahadsan tahay daawashada iyo share gareynta muuqaalkani daawade mar walba waxaad tahay daawadaha kaliya aynu doonayno inuu nala jaan qaado adigoo kaga qayb galayo fikradaada qadadka telefoonada
aaraadaada sida toos adigoo ugu soo cabbirayo waxay kula tahay barnaamijka ama wararka aynu islamarkaa miiskiidin soo saarno waad ku mahadsan tahay daawashadaada Life News Somali TV u raarici dhagaha kuna taageer aragtida